rabnaa aan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in ay joojiyaan wax kasta oo muhiimad ah oo maanta jiro oo aan ahayn dagaalka shabaab lagu qaadayo xoreynta dalka laga xoreynayo nimankan cadawga ah haddii mid darajo doonayay darajadaadu waxay jirtaa markii shabaab la waayo kadib ay jirtaa ka hor darajo ma jirto haddii mid hanti doonayay hanti iyo dhaqaale iyo inaad heshaay markii dalka shabaab laga xoreeyo oo dhaqaalahaaga meesha uu ka jira aad ka doonan karto meel kasta ka ganacsan karto ayaa hantidu lahaanshaheeda ay ka jirtaa haddii mid siyaasad doonayay dalkan maanta sida uu joogahay siyaasad ka socotahay ama ku soo gaari karta ma jirto markii siyaasadaadu haddii mid dawlad goboleed inuu madax ka noqdo doonayo dawlad goboleedka aad madaxda ka noqonaysaa waxay ka dambaysaa marka shabaab deegaanka iyo dalka aad madaxda u noqon lahayd adiga laga waayo markaas dawlad goboleedka aad madaxda ka noqonayso iyo gobernatoornimada iyo duqa magaalo iyo maxaa taliyaha saldhiga iyo soo doono maalintaas aad leedahay ka soo doono dadkaaga ha ku dhibtaan maalintaas laakiin maanta dadka khaaquul iyo qaraanqul inta la geliyo yaan laga weecinin oo aan laga leexinin muxuu ahay maanta baahida taagan waa intaas dawladda Soomaaliya maanta intaasaa ka go'an caalamkuna intaas inuu dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ku kaalmeeyaa ka go'an waa fursado badan oo na soo maray oo aan luminay ayaa jirtay yaanan luminin dad badan oo shabaab naga galfan doona oo dili doona kuwa badan oo isku dayi doona inuu dilo oo madaxda dalka ugu sarreysan anigu aan ka mid ahay uu joogo markii koobaad ma aha markii labaad ma aha maanta shabaab oo isku dayayaan waxaan ahayn inaan sii dhiiranno iyo inaan commitmentigeenu sii xoogaysto ma ogiye wax kale oo muxuu ahay weerarada shabaab ay nagu keenaysaa ma jirto nimankaani waa niman sii dhimbanayo yaanan firiqdooda yaanan waxba macno badan yaana idiin samaynin way dhimanayaan waanan ka adkaanaynaa waanan ka adagnahay dalkana waa ka xoraynaynaa haddii alla yiraahdo shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inuu intaas dhiirinaas uu qaato dhiiranaantaas uu nala qaato nimankanna aan dagaalka ma dambaysa ku socday aan wixin abaabulka dawladda iyo maxaan ku raada shacabku meel fiican u maraya mar dhowna dalka meel hal mitir oo shabaab ka taliyo dalka in la waayo hadafkeena weli inay bamba jidka dhigaan iyo baabuur iyo wiil yar ay soo khaldeen inay soo diraan iyo way sii wadi doonaan baryahan laakiin wax macnaha ay leedahay malaha aakhirka gadaalay ka soo dhamaatay waan ognahay marka wax sii soconaya ma aha maanta waxa ay dadka ku sabayaan waan noolnahay waa jirnaa shabaab weli waa jiraa inay dadka tusaanay rabaan annagu ma jirtiinaan leena waad dhimateen waxa ay dadka tusayaan waa si dhintay caanihiisa sac dhintay caanihiisa ama gadaal ka soo badanayaan shabaab maanta waa sidaa